salaamullaahi calaykum asxaabteyda qiimaha badan ku soo dhawaada muuqaal cusub maanta muuqaalkeena waxaa si kooban uga hadli doonaa waqtiga iyo maareyntiisa mahadiyoodan waxay u sugnaatay allihii noogu deeqay waqti ballaaran maanta muuqaalkan waxaan ku ifin doonaa waqtiga uu alle subxaanahu wa tacaala noogu deeqay qiimuhu ku fadhiyo oo ah mid muhiim ah lana doonayo qof kasta inuu ka faa'iideysto waqtiga sida ugu wanaagsan asigoo isbarbardhigaya waqtiga uu haysto iyo howlaha horyaala ugu horeyn maxaa lagu qeexay waqtigu waa waxa ugu weyn uu Allah ugu nimceeyay aadanaha waana xilli qof kasta soo mara intuu nool yahay dibna ugu soo laabanaynin inuu ka sheekeeyo maahane haddaba qof kasta waa inuu isku daya sidoo uga faa'iideysan lahaa fursadaha soo mara maxaa yeelay waqtigu waa fursad Allah ku siiyay subxaanahu wa tacaala haddii aad ka faa'iideysan weydo way ku dhaafaysaa fursadaasi waadna ka shaqayn doontaa xilli waqtigaasi ku dhaafay fiiri sawirkan waqtiga waa sida calaamadahan kala duwan mid kastaana waa fursad ku soo maraysa haddana aan kugu soo laabanaynin waqtiga waa qayb ka mid ah cimrigaada saacad ka mid ah haddii aad dayacdid waxaad dayacday cimrigaada qof kasta waxaa lagu qiimeeyaa hadba siduu u qiimeeyo waqtiga nolosha waa waqti haddii aad dayacdid waqtiga waa adigoo dayacay noloshaada waqtiga oo aad maareysana waa adigoo noloshaada xakameeyey ha fiirinin mashquulkaaga badan ee waxaad fiirisaa aad ku mashquulsan tahay muhiimadda ay leeyihiin waayo daqiiqad kasta waxa gacantaada ku qoraysaa qisada noloshaada waqtiga waa sida lacagta oo kale go'aan ka gaadh sida aad ku bixinaysid iyo meesha aad ku bixinaysidba diinteena islaamka waxay daneysay waqtiga ayadoo ka fiirisay dhinac kasta alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ku dhaartay qaybo ka mid ah waqtiga dhaartaas oo ku tusinaysa ahmiyadda waqtiga uu leeyahay mar haddii alle weyne uu ku dhaartay sidoo kale axaadiista sharafta leh waxay caddeeyeen qiimaha iyo faa'iidada uu leeyahay waqtiga nabigeenu wuxuu noo tilmaamay su'aalaha afarta ah ee aadanaha la weydiinayo qiyaamaha laba ka mid ah waxay lug leeyihiin waqtiga dadkii hore ee wanaagsanaa waxay dhihi jireen salaadaha waa miisaanka maalinta jumcadana waa miisaanka isbuuca ramadaankana waa miisaanka sanadka xajkana waa miisaanka cimriga maareynta waqtiga haddaba sideen u maareynaa waqtiga dhammaanteen maalin kasta wax baan qabanaa laakiin uma qabano sidii saxda ahayd maareynta waqtigu waa howl ku saabsan nidaaminta waqtiga aad haysato adigoo qorsheynaya qaabka ugu habboon ee ay kugu fuli lahaayeen howlahaada sidii aad uga talagashay waana qaababka u sahlaya qofka in si waxtar leh uga faa'iideysto waqtigiisa una fududeynaysa siduu ku xaqiijin lahaa ujeedooyinkiisa asigoo isu dheelitiraya baahiyihiisa kala duwan maareynta waqtiga haddaba ujeedada maareynta waqtigu waa maxay ujeedada maareyntu waa in si hufan noogu fulaan howlahan horyaala in waqti gaaban aan ku qabanno howlo muhiim ah in uu noo soo haro waqti aan ku fikirno uguna raaxayno nafteena in aanu ka baxno nolosha isu dhexyaaca ah haddaba si aad u maareyso waqtigaaga raac tallaabooyinkan waxaad isbarbar dhigtaa howlaha kuu yaala waxaad samaysaa jadwal isbuucle ah oo ku salaysan qaababka aad isu waafajinaysid una kala maareynaysid shaqooyinkaaga kala duwan markaas waxaa kuu soo baxaya inaad waqtigaada ka faa'iideysan kartid adigoo ku shaqaynayo waqtigii aad hore u haysan jirtay ogow marka maareynta waqtiga waa arrin kuu gaar ah oo u baahan inay la jaanqaado duruufahaaga gaarka ah iyo bay-ada kugu xeeran inaad ka tallaabsatid kana gudubtid caadooyinkaagii hore waxay qaadanaysaa waqti dheer samir iyo dadaal culus ayay u baahan tahay intaan ayuu ku egyahay muuqaalkeena maanta oo aan si yaroo kooban uga hadlaynay waqtiga iyo maareyntiisa waxaan rajaynayaa inaad wax ka faa'iiday intaan muuqaal kale ku kulmi doono sidaa iyo ammaano Allah